waxaanu ku guda jirnaa chapterkeeni shanaad maadada agriculture-ka ee ciwaankeena livestock health lessonkiisa labaad cashirkiisa labaad lesson 2 aynu ku sheegnay in uu yahay lesson 2 aynu ku baranayno maanta classification of livestock health lesson 2 classification of livestock health classification of livestock health haddaan soo baranay caafimaad waxa la yiraahdo xaaladda xayawaanka ka badqabo from disease uu yahay disease-kana aan niro xaalad carqaladeynaysa ama xanuun u keenaya hoos u dhac u keenaya noolaha in jirkiisa caadi ah u shaqeeyo aynu niro waxyaabaha sababa aan soo sheegnay iyo predisposing factorska mas'uulka noqon karo inuu xayawaanka jirado maanta waxaynu baranaynaa inaan kala saarno xanuunada ku dhaco xoolaha aynu dhaqanno sida aanu kala categorize u kala saarino haddaba classification markaan eegno livestock waxaa lagu bees gareeyaa hadba waxa shayga wakiilka ka ah inuu xanuun ka dhaco casual agent ayaa la yiraahdaa shayga sababta u leh hadduu virus sababo virus disease hadduu bacteria sababo bacterial disease hadduu protozoa sidaas aynu kala saarinaa and therefore animal disease are classified to waxaanu kala saarinaa kuwa ay bacteria sababto bacterial disease viruska kuwa uu sababo viral disease protozoa kuwa uu sababo protozoa disease kuwa cunnada xuni ama inadequate amount nutrition ka la xiriiran waxaan dhahnaa nutritional disease xanuunada sababa in ay nutrition la'aan keento way aan ku hormarna bilowno bacterial disease markaynu baranayna xanuunada kala saarayno kala qaybinayno kuwa bacteria sababtay horta aynu isla ogaano waa maxay bacteria microscopic germs waa jeermisyo ilma aragta ah oo shayna caadiga we can't see with our naked eye ishayna caadi kuma arki karna unless we aid a microscope illa aan adeegsano microscope sida daraaddeed loo yiraahdaa microscope kuwa lagu eego shaybaarka ama weynaysada that consists of waxay ka kooban tahay single cell hal unug ay ka kooban tahay laakiin ma lahan distinct nuclear membrane macnaha waxaan dhihi jirnay kuwaasi prokaryotic kuwa aysan kala socnayn nucleus from their cytoplasm organelleskooda kale aysan kala socnayn isku dhex yaacsan yihiin ayaynu naqaanaa okay cudurradaasi waxaa ka mid ah anthrax cudurka aynu Soomaalida u naqaano kudka waxaa ka mid ah abortion in neefku ilmaha ka soo dhaco waxaa ka mid ah mastitis xanuunkaasi candhada ama naasaha ka galo xoolaha waxaa ka mid ah calf scores intaasi waxay yihiin xanuunada ku dhaca xayawaanka oo ay sababaan bakteeriyada mid aynu u daraasayno haddaan ku hormarno anthrax xanuunkani waa xanuunka aynu niri xanuunka kudka xayawaanku ku dhaca animal affected wuxuu ku dhacaa cattle looda sheep idaha goats riyaha and horse iyo fardaha intaas wax kudka waa ku dhacaa waxaan kala baranaynaa yaa sababa waxa sababa bacillus anthrax nooca la yiraahdo bacteriyada genuskeeda bacillus species-keeduna uu yahay anthrax oo magacaasi sidaas ku qaatay xanuunka kudka anthrax-ka la yiraahdo ee xoolaha ku dhaco astaamihiisa waxa ka mid ah symptoms-ka maankan uu ku dhaca balse anagu waxaan baranaynaa xayawaanka wuxuu keenaa sudden death in neefku uu durbaba dhinto si degdeg ah oo geeriyo oo u dhinto waxa kale oo keeni kara high temperature astaamaha inuu xanuunkan anthrax ka hayo heerkulka xayawaan kor ayuu kacayaa blood the nose sanka waxa ka imaanayo dhiig ama all body opening ama jirka meelaha daloolo dhegta oo kale qaybta dambe ee jirka xayawaanka intaba indhaha inuu ka keeno dhiig xanuunkaasi marka haddaan ku aragno waxaan leenahay xayawaankani waxa hayo anthrax haddaba sidee ku maareyn karnaa sidee ku xakameyn karnaa control vaccination of healthy animals marka hore in aynu ka siino talaalka kudka xoolaha waa inaan marka hore talaalnaa waa nooc lagu manage garan karo laga hortagi karo sidoo kale waxa ku manage garan karnaa disposal of dead animals marka xayawaankani uu dhinto aynu meelaha isan oolino xoolaha agtooda si uusan u faafin xanuunka waa disposal aan ku sameeynaa goda u qodeynaa landfill gibigis waa aasena oo waa qarinaynaa si uusan u sii faafin waxaan fahnay antarkiisa inuu yahay xanuunkaasi astaamaha si lagu garto sudden
days-ka iyo dhiigga ka imaanaya indhaha iyo sanka sidoo kalena talaalka laga hortagi karo waxaan kaloo ku xakameyn karnaa quarantine in aynu isolation ku sameeyno oo xayawaankani qabo lo'da ama geela ama xoolaha ariga lo'da ama idaha ama riyaha ama fardaha aynu ka soocno kuwa kale oo aan ku sameeyno quarantine sawirkaani wuxuu inoo muujinayaa neef uu ku dhacay neef saaca oo lo ah ee uu ku dhacay xanuunka kudka oo sawirka sida nooga muuqdo sankiisa iyo afkiisa iyo indhihiisa waxa ka soo daadanayo dhiig taasina waxay inoo muujinaysaa sankii afka waxa ka soo baxay dhiiggaasina astaamihii mid ka mid ah ayaan ku garanaynaa haddaan fahnay ayna u gudubno cudurrada ee bakteeriyada sababta waxaa ka mid ah kan labaad mastitis-ku yuu ku dhacaa aynu isla ogaano mastitis-ku wuxuu ku dhacaa cattle looda as well as sheep idaha goats riyaha horse fardaha and camels iyo geela oo waa maxay waanu arkaynaa waxaa sababa laba nooc oo bakteeriya streptococci and streptococci labadaba way sababaan astaamaha aan ku garanayno in xayawaankani uu ku dhacay mastitis waxaan garanaynaa in temperature-ku uu sarreeyo uu la wadaagaa laakiin caanuhu isla markiiba clots in milk caanuhu way xinjiroobayaan oo fadhiisanayaan markiiba sidoo kale inflammation waxaa caawa ka soo muuqanaya nabro iyo barar iyo dildilaac teats naasaha and adder candhada waxaa ka soo muuqanayo xanuunkaas astaamahaas haddaan aragno waxaan leenahay markaa candhadii iyo naasihii hadduu saco ama neefka geela hasha ay ka jiran tahay waxaan garanaynaa inuu hayo xanuunka mastitis-ka haddaba xanuunkaasi sideen uga maareyn karnaa sidee u xakameyn karnaa control u samayn karnaa wash teats before milking caanaha inta aadan lisin neefka waa in aad milking intaan la lisin waa in laga dhaqaa la nadiifiyaa sidoo kale high hygiene markastoo neefka in lagu dadaalo candhadiisa inay caafimaad inay bad qabto oo ay free from germs inay tahay in la ilaaliyo nadaafadda hygiene nadaafad qab aad u sarreysa in la ilaaliyo xayawaankaasi waa u badbaadayaa candhada iyo naasaha intaba xanuunkaasi waa ka badbaadayaa sawirkaani haddaad eegtid wuxuu inoo muujinayaa neef saaca oo ay teats ka galay xanuunka mastitis sidin kaga muuqato candhadii neefka waxaa ka soo baxay astaamihiina kusoo tilmaamnay haddaan ka gudubno xanuunkaasi waxaan u gudbaynaa xanuunka saddexaad ee bakteeriya sababta la yidhahdo abortionku waa wuxuu ku dhacaa cataliska lo'da buffalo waa loogisida nooc ka mid a lo'da ee duurjoogta ah and horses iyo fardaha uu ku dhacaa xanuunkani waxaa sababa Brucella abratus bakteeriyada la yidhaahdo astaamaha lagu gartana waxaa ka mid ah sudden death dhimashadiga high temperature blood oozes from all body jirkana inuu ka imaado dhiig oo xoolaha neefku soo dhaafay ilmihi yaraa control waxaa lagu manage gareyn karaa vaccination of healthy animals in la tallaalo disposal of dead animalna inaan iska ilaalino kadibna sidoo kalena aan sida hore usoo sheegnay aan ku sameyno quarantine sawirkaas wuxuu noo muujinayaa neef uu ku dhacay abortion in dairy cattle neefkaasi waxaa soo dhaafay ilmahaasi waqtigiisa aanan gaarin ayaa ka soo dhacay waxaan leenahay waxaa ku dhacay abortion way dhicisay neefka wuu dhicis xanuunka afaraad ee bacteria disease sababta waxaa kamid iskoosku muxuu yahay iskoosku wuxuu ku dhacaa suckling young calves aynu leenahay calf ma dheeno young calveska yaryar ee weysha saaca ama weysha yar kids waa waxaraha the goats ilmahooda yar waxa la yiraahdaa kids as well as lambs naylo ama nooca idaha midkooda yar ayaa la yiraahdaa lamb naylaha waxaraha sidoo kale weylaha iyo neesha intaas ku dhaca waxaana sabab bacteria laga helo intestine-ka oo la yiraahdo E. coli waxa laga soo gaabiyay Escherichia coli astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah oo fooq baxaya neefkani dehydration blood and mucus dhiig iyo xab ayaa ka soo baxaya white and yellowish sidoo kale wuxuu sameysanayaa waxaa ka soo muuqanaya cadaan iyo horood isku jira xanuunkani iskooska la yiraahdo ee ku dhaco ilmaha yaryar waxaa lagu controlaa antibiotics in la siiyo antibiotic in la ilaaliyo good hygiene nadaafadda neefkaasi sida ka muuqdo wuxuu u dhintay ilmahaasi yar xanuun iskoos ku dhacay oo waxaa ka soo muuqday astaamihiisii
haddaynu u gudubno waxaan ku jirnaa categorieska loo kala saaro xanuunada ku dhaco livestock-ga waxaan dhahnay nooca jeermiska ama cudurdhaliyaha magacii sida uu yahay ayuu ku dhaco hadday viral disease uu yahay viruska u sababo waxaan dhahaynaa viruska u sababo viral disease waa xanuunada uu viruska sababaya virus aynu sheegno waa is a type of a simple germ or organism waa la yiraahdaa living and non living sababtoo markuu meel noole ku jiro wuxuu muujiyaa astaan noole markuu meel ma noole ku jiro wuxuu muujiyaa astaan noole which is invisible isagoo aad ayuu uga yareeyay bakteeriyada markii la cabir ahaan under microscope caadiga ahna waa lagu ma arki karo invisible high power microscope ayaa lagu fiiriyaa and cause wuxuu sababaa infectious disease xanuunada faafa that are hard to treat in la daaweeyo adag tahay but preventable by vaccination xanuunada viruska ku dhaco daaweynteedu way adag tahay balse talaalka iyo ka hortageeda ayaa noo fudud ayna awood u leenahay aynu barana hadaba xanuunada waxa kamid ah foot and mouth oo aynu u naqaano cabeeb af Soomaaliga xanuunka cabeebka waxa kamid ah rinderbeest waxa kamid ah fowl pox waxa kamid ah Newcastle xanuunadaani mid aynu u barano koow aynu ka hormarno foot and mouth disease xanuunkani ku dhaca xoolaha ee la yiraahdo af Soomaaliga cabeeb foot and mouth disease ku yuu ku dhaca xayawaanku ku dhaca wuxuu ku dhacaa katalooda sheep and goats idaha iyo riyaha ayuu ku dhacaa xanuunkani waxa sababo straino sulaalaad sinjiyo badan sulaalaad badan oo virus ilaa 7 gaarayo ayaa sababa hal nooc kaliya ma sababo astaamiisa waxa kamid ah xanuunkani inuu cabeeb ku dhacay neefka lameness maxaa inability to walk incapable of normal locomotion ama neefku wuxuu awood u waanayaa in uu si saaniya u socdo oo waxa dhacaysa inuu awood u yeelan waayo socoshada lameness ayaa koow ah astaanta ku garanayno foot and mouth sidoo kale continuous salivation neefku waxa ka dhacay dhareer ayuu wadayaa oo daadinaya dhareer badan ayaa ka soconayo oo kala joogsileen blisters on tang carabkana waxa ka soo muuqanayo nabaro ayaa carabkiis ka soo baxay iyo ciridka intaba marka sida darada waxaan leenahay cabeeb neefkani cunada xataa awood uma yeelanayo inuu cuno sababtoo ah waxa u diidaya cabeebka afkaasi ka galay waxaan kale ku garanaynaa high fever qandho aad u badan sideen marka xanuunkani cabeebka ama foot and mouth disease-ka lagu manage garan karaa lagu maamuli karaa waxa lagu maamuli karaa by vaccination inagoo talaal siinayno affected animals qodobka koowaad by vaccination anagoo talaal siinayno qodobka kale aynu ku manage garan karno laga maarmaanka waa affected animals as slaughtered xayawaanka uu ku dhacay waa la bireynayaa mass slaughter la sameeynaya in xoolaha ugu badnaa ee xanuunkaas ku dhaco waa la gowracaya waa laga fogeynaya xoolaha kale si looga badbaadiyo aynu u controlno xoolaha kale si nooga gaarin foot and mouth maadaama aan dhahnay foot markaan leenahay sidaas ayuu raafka uga gelayaa raafka ayuu ka gelayaa oo nabarkaas ayaa ka soo muuqanaya neefka awood uma yeelanay inuu socdo markaan dhahaynay cabeebku wuxuu ka gelayaa taanga carabka iyo ciridka iyana sida sawirka kaaga muuqda neefkaas afkiisa awood uma yeelanayo inuu daaqo oo waxa ku dhacay foot and mouth disease oo la yiraahdo cabeeb rinderbeest xanuunka saddexaad rinderbeest ama cattle plague la yiraahdo waa nooc cattle plague markii la leeyahay waa nooc daacuunka looda ku dhaco kala wuxuu ku dhaca cattle looda ayuu gaar ku yahay xanuunkani waxa sababa rinderbeest virus la yiraahdo astaamaha aan ku garanayno inuu hayo rinderbeest high fever qandho badan profuse diarrhea shuban ayaa ka soo baxayo biyo ah that's blood stained walina uu ku dhex jiro xariiqama dhiig uu la socdo nasal discharge afka carabka waxa ka soo sankiis waxa ka soo daadanayo nasal discharge and lacrimation sanka waxa ka socon doono dhacaano sidoo kalena lacrimation ilimo ayaa ka soo baxayo oo ilin ayaa ka secretion of tears ilimo ayaa ka soo daadanayo xayawaanka control sidee lagu maamuli karaa waxa lagu maamuli karaa by vaccination iyadoo la talaalayo sidoo kale quarantine waa la karantiilaya affected area deegaankaasi dawladda waxay leedahay xanuunkaasi ka dhacay seerahaas iyaanan xoolaha kale la geyn sababtoo waxa ka soo muuqday rinderbeest waan la karantiilaya waan ka hortageynaa sawirkaasi wuxuu inoo muujinayaa neef uu ku dhacay rinderbeest
xanuunka saddexaad ee uu fayraska sababo waa Newcastle wuxuu ku dhacaa poultry-ga shimbiraha digaaga waxa la yiraahdaa turkeys nooca kamida noocyada kala duwan ee shimbiraha ayuu ku dhacaa poultry-ga Newcastle xanuunkan waxa sababa virus astaamaha ku garan waxa kamid ah xayawaankii waxa ka soo muuqanaya shimbirihii ama digaagii in ay nasal judge sanka ka soo daato waxyaabo dhacaana sidoo kale awood u yeelan waayo inuu neefka neefsado xayawaanka neefsado sida digaago kale in awood u respiratory difficulty neefsashada inay ku adkaato yellowish white diarrhea in uu ka imaado shuban ay isku dhex jiro jaale ama huruudi ah isku dhex jira cadaan iyo jaale sudden drop in egg in digaagu si degdeg ah ukuntii ka soo dhaco xilligeeda la gaarin ay dhigto waxa lagu manage garan karaa xanuunkan vaccination in la talaalo xayawaanka quarantine in xayawaanada kale laga isolate gareeyo clean affected bodies dhammaan shimbiraha xanuunkan lagu arkay in la baabi'iyo la dilo si looga hortago xanuunkan inuu safaafin xayawaanka sidiiqa ama shimbiraha sidiiqaasi digaagadaas waxay noo muujinaysaa inuu ku dhacay xanuunka la yiraahdo Newcastle sankiisa waxa ka soo daadanaya xab ama dhacaano sida kaaga muuqata astaamihi aynu ku sheegnay ayaa ka soo baxaya waxaan u gudbaynaa xanuunka afaraad ee soo fayraska waxa la yiraahdaa fowl pox af Soomaaliga aan ku dhahno furuq digaag waa nooc kamid ah furuqa digaagadaha u gaar ah wuxuu ku dhacaa shimbiraha poultry noocyada digaaga iyo shimbiraha kale la halmaala waxaana la sababa fayraska la yiraahdo fowl pox virus astaamaha lagu ogaado xanuunkan waxa kamid ah tiny wounds waxa ka soo dhaawacyo yar yar on skin maqaarka ku sameysmayo oo nabar ayaa kaga sameysmayo maqaarka iyo comb waa madaxa sare ama fooda digaaga uu leeyahay ayaa waxa ka sameysmayo nabar ayaa ka soo baxayo waayahay breathing difficulty astaamaha ayaa ku adkaanayo difficulty in breathing in nafsashada ayaa ku adkaanaysa excessive discharge from eyes indhaha waxa ka soo baxaya waxyaabo aad u badan ayaa ka soo daadanayo waxa laga hortagi karaa in la siiyo talaal in laga karantiilo in shimbiraha ay xanuunkan qabo laga baabi'iyo meesha digaagadaasi waxa ka soo muuqanayo fowl pox sida kaaga muuqdo dhowrkii sare waxa kaga yaal xanuunada nabro oo keenay indhahana way qarsoomeen astaamihii fowl pox-ka ayaa ku dhacay oo ah furuq digaageed ayaa ku dhacay haddaan u gudubno category-ga saddexaad waa protozoan disease xanuunada ee protozoaha u sababo xanuunadani protozoan is a single celled organism waayo protozoa that are transmitted by factories qaada sida caadiga ah factor qaado oo isagu ama markii caadiga bini'aadamka ka hadli jirnay plasmodium ku kamid aha factorka waxa qaadi jirtay anopheles-ka haddana waxa qaada xayawaanka marka joogno ticks shilinta ayaa qaadayso from animal to an animal xayawaan ay ka qaadaysaa mid kale ay u geynaysaa oo protozoal disease-kaas waxa kamid ah East Coastal fever anaplasmosis iyo coccidiosis aynu ka hormarno East Coast fever-ku isagoo wuxuu ku dhacaa poultry-ga digaagadu ku dhacaa waxa sababa fayraska la yiraahdo Therialia brava astaamaha lagu garto waxa ka mid ah swollen lymphatic glands-ka lymph nodes-ka qanjiradii lymphatic ayaa bararayo meel kasta oo ku jiro lymph sidoo kale difficulty breathing ku adkaanaysa neefka temperature-kiisa aad buu u kacayaa weakness daciifniyo xayawaanka awoodiisa hoos ay u dhacaysaa hadaynu ku aragno waxa sababa protozoal disease waxaana la yiraahdaa coastal fever waxaana laga hortagi karaa in shilinta laga buufiyo xayawaanka laga baabiyo laga dilo sidoo kale treating use antibiotic in la siiyo lagu daweeyo anaplasmosis-ku wuxuu ku dhacaa cattle lo'da goat riyaha and sheep iyada caused by waxa sababo anaplasma marginale ayaa sabab ah xanuunkaasi astaamaha lagu garto waxa kamid ah constipation inuu calool fadhi xayawaanku saxarada saalada ay ka imaan weyso lo'da faantadeeda ay banaanka imaan weydo rise in temperature in heerkulka uu kaco waxa lagu manage garan karaa in laga buufiyo shilinta xanuunkan la yiraahdo coccidiosis isaguna wuxuu ku dhacaa cattle goat and sheep ayuu ka dhacaa waxa sababa Emeria tenella astaamaha lagu garto waxa kamid ah diarrhea shuban which may be watch or blood stained ama shuban cadaana ama dhiig la socda saxarada ayaa lagu garanayaa inuu xanuunkan hayo wuxuu the young look weak lama yareeyo ku dhaco wuxuu noqonayaa mid aad daciif ah waxaana lagu hortagaa
proper hygiene in nadaafad qabka xoolaha la ilaaliyo oo meesha lagu xareynayo habeenkii ee noqdo meel nadiif ah avoid overcrowding xoolaha sida xadaafka meelaha la isku geeyna in laga hortago xanuunka saddexaad ee ubertosa waxa kamid ah trypanosomiasis magacaas waxaan ka dareemaynaa trypanosoma ayaa sababa is caused by trypanosoma ayaa sababa specieska la yiraahdo oo uu xambaaro duqsiga la yiraahdo tisifly ee African Sleeping Sickness ka inuu bini'aadamka ku sababi jiray astaamaha lagu garto waxa kamid ah high fever qandho badan loss of appetite xayawaanka oo lumiyo cunada aan daaqi waayo raafkood maqaarka sare oo jactinaado ka soo muuqato waxyaabo la mid ah waxa lagu control karaa lagu manage garan karaa xayawaankani control tisifly in duqsigaasi tisifly-ga la xakameeyo ee ugu dambeyn qaybta ugu dambaysa xanuunada waxa sababo ilaa category ku sameeyay bacterial disease viral disease protozoal disease hadda waxaanu baranaynaa nutritional disease xanuunada ay sababto cunno xumada nafaqo xumada waxa kamid ah milk fever animalska ay sababto waa cattle looda waxaana iska sababo lack of calcium in the blood xadiga macdanta calciumka ee ku jirtay dhiiga xayawaanka uu lahaa ayaa hoos u dhacay markaas waxa ku dhacan leenahay milk fever oo nutritional disease waayo lack of calcium darteed ayaa keentay astaamaha ka soo muuqanaya xayawaankan waxa kamid ah muscular twitching oo ah murqaha ayaa kala rooreeyo murqaroor ayaa ku dhacayo murqaroor as well as staggering oo ah socod aanan fiicnayn ayuu soconaya oo dhicitaan leh socod oo dhacdhac leh oo marba meel uu ku dhacayo oo aan toosnayn astaamahaas hadaynu aragno waxaan leenahay lack of calcium ayaa jira oo xanuunkan waxa hayo milk fever waxa kale kamid ah xayawaanka paralysis ayuu noqonayaa oo paralysis ayuu noqonayaa gabigiis waan shaqeyneen waxaan ku manage garan karnaa looga hortagi karaa in milk fever uu dhaco waliba nutrition disorder inuu dhaco feeding animal on diet that rich with calcium in xayawaanka la siiyo cunooyin ay ka buuxdo calciumta waxa kamid ah cudurka labaad ee nutritional disorder-ka bloatka dadku qaar waxay u yaqaanaan darato dadna waxay dhaqaan baqooq ayay dhahan dadna waxay yaqaanaan xanuunka daratada oo xilliga markii cagaarka oo aad naqa oo aad ziyaado u noqdo ay daaqaan ay xayawaanka soo muuqda wuxuu ku dhacaa cataliska looda sheep and goats waxa sababa excessive feeding inuu aad u quuto fresh pasture daaqa naqa aad u badan inuu daaqo or blockage of ama in ay wind pipe isxirto oo hawada mareenka isxirto labaas way keentaa xanuunkani astaamaha lagu garto waxa kamid ah xayawaanka dhinaca bidixda left side of the abdomen ubuucda dhankeeda bidix ayaa soo baxayso banaanka imaanayso waxaan leenahay bloat ayaa haya darata ayaa xayawaankani ku dhacay dadka qaar saa darada maadaama dhinac uu ka foocmayo ayay dhahan darata gashay difficulty breathing neefku waxa ku adkaanayo neefsashada waxa lagu maamuli karaa in la socodsiyo xoolaha la dhaqaajiyo la wado exercise in the sick animal ku qoslaysa markii lagu dhaho xoolaha loo sameeyo exercise wax kale ma aha neefku la socodsiinaya fadhiga waa laga kicinaya in uu si xanuunkaasi oo looga hortago inuu dhaco feeding the animal on dry xilliga naqa ziyaadada ah marka uu ka batay wuxuu keenay inuu dhaco bloat marka waxa loo raadinayaa calaf qalalan xoolo caws qalalan ama dhir qalalan ayaa la siinayaa si loo controlo general methodist ugu dambeynaa shirkeenu ku soo gabagabeynayno wuxuu yahay disease-kaasi methodist-ka sidee guud ahaan loo controlaa xanuunadan inaysan dhicin sideen ku ilaalinaa sanitation and hygiene waa in markasta xoolaheena nadaafad qabkooda aan ilaalinaa xerada lagu xareynayo deegaanka la geynayo waa inaan u doornaa meel badqaba fensigeeda ku jiraan vaccination waa inaan mar walba talaalka la soconnaa talaalka xoolaha mar walba la talaala proper feeding waa inaan naq fiican geynaa meel fiican anigu cunto fiican siinaa markii xanuuno ay dhacaan quarantine waa inaynu kala karantiilnaa aan ilaalinaa methodistka handling livestock marka la sameynayo si loo aan u dhaqano oo fiicino hoof trimming waxaan ku sameynaynaa hoof trimming oo ah raaf qoris neefka socodka uu ku adkaanaya waxa baxaya raafafka inaan fiirsano maaha neefka waxaan u sameynaynaa hoof trimming waxaan ka jareynaa raafka dheeraaday si socodkaan ugu fududeeno waxaan sameynaynaa dehorning geesaha dhaadheer suuq geynta markii la
iibinayo xoolaha geesaha dhaadheer lama iibsado saa daradeed dihorna ku sameeynaa geeska ayaan ka jaraynaa gees goyna ku sameeynaa sometimes xoolaha markaan daaweynayno haduu geesa dhaadheer leeyahay dhibaateynaya si aan uga hortagno waa loo yeelaa in loo gees gooyo castration waa dhufaanina oo maxaa u dhufaanina neefka inuu si fiican u ciilo si aan u eebgeeno intaas ayaynu ku gabagabeynaa cashirkeennii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.